qofka hadafkiisu markuu u cad yahay uma baahna inuu isweydiiyo maxaan talo qabtaa maxaa yeelay hadafkiisa mar walba u tilmaamaya wuxuu qaban lahaa laakiin markaadan hadaf iyo jadwal lahayn markaa weeye marka naftaadu ay ku soo dhacaysa saxara cidla oo isweydiinayso xaggee bay iga jirtaa talo magaaladan u socday waa inay naftaadu mar walba ay u taagan tahay sidii ay u gaari lahayd hadafka ay leedahay nolosha maxaad ka damacsantahay inaad noqotid haddii shay walba oo nolosha ka mida oo aad maanta jeclaan lahayd aad gaari kari la'dahay hawsha kaa xigtaa maxay tahay maxayse u baahan tahay inaad meeshaa gaartid waxaa mar walba lagama maarmaan ah naftaadu inay hore u socoto waxaad ahayd cad yar oo hiliba oon madaxa kor u qaadi karin laakiin korriimada iyo adduunka maalmahaad soo joogtay ku celcelin fara badan ayaad waxa maanta aad tahay oo dhan ku baratay waxaan ugu dambayn kula wadaagayaa waa inay shalay ka gedisan tahay maanta barrida soo socotaana waa inay maanta ka gedisan tahay habeenkii ku soo dhaafay waa inuu habeenkaa joogtid ka duwan yahay asbuucii horena waa inuu asbuucan ka gedisan yahay waa inaad mar walba hadafkaaga intaad u jirtid kuwa caddahay waa inuu mitir jira ku tusaya hadafkaaga intaad u jirtid haddaan waxba kuu qornayn marna ma caddayn kartid inta hadafkaaga ka dhiman ma garan karaysid waa inaad mar walba horu socod leedahay haddaadan duuli karin orod oo haddaadan ordi karin soco oo haddaadan socon karin guurguuro waxaa mar walba lagama maarmaan ah inaad horay u socotid